Hansi Flick ayaa bedelay noloshayda haddii uusan isagu jiri lahayn waan ka tagi lahaa Barcelona wuxuu i dareensiiyay inaan muhiim ahay. Rafinha ayaa hadalkan horay u yiri waana tayada uu ku muujiyay garoonka Boqor Cabdullaahi ee gudaha Sacuudi Carabiya finalka Super Cup-ka Isbaanishka oo ay 3-2 guul ka gaareen kooxda Xavi Alonso ee Real Madrid. Xidiga reer Brazil ayaa 2 jeer shabaqa u soo taabtay Barcelona. Roberto Lewandowski isna uu dhaliyay goolka saddexaad taasoo u suurtagelisay kooxda reer Catalonia inay sanadkii labaad oo xiriir ku bahdishay Real Madrid arriga Sacuudiga kuna guuleysato koobkeedii 16aad ee Super Cup-ka. ninkii xoog leh bay xaaja u toostaaye kanina waa Rafinha oo ina leh ciyaarta kadib markaan dhammaanteen sidaan oo kale u feejiganahay inta ciyaartu socoto way ku adkaanaysaa inay naga adkaadaan halka Xavi Alonso oo mustaqbalkiisa hogaaminta Real Madrid uu halisii galayna isna uu ku cataabay tartankan waa kan ugu yar dhammaan tartamada muhiimka ah ee xil ciyaareedka bilowgii ciyaartu waxay ahayd mid aad u qalafsan sabab la xiriira kulaylka fiidkii ee Sacuudiga iyadoo Barcelona ay kubadda maamulanaysay Real Madridna waxay ku jirtay dib u gurasho xeelad dagaal si ay u maarayso duufaanta weerarka Barcelona waxayna naf ka raadinayeen weerar rogaal celis ah iyo Vinicius Junior xidiga reer Brazil waa Vinicius Junior ma uusan dhalin gool 16 kulan ee ugu dambeeyay balse waxa uu ahaa halis joogto ah isagoo ku ordayay garabka bidix isla markaana waxa uu sidii maro oo kala u dhaqay Conde kaasoo ay ka gaartay uma malaynayo inaan Barcelona ka simid ahaan doono Vini waxa uu keenay goolka barbaraha balse Lewandowski ayaa degdeg hogaaminta ciyaarta ugu soo celiyay Barcelona isagoo caawintii ugu fiicneed kulanka ka helay wiilka dahabiga ah Pedri ayeshe Gonzalo Garcia waa diiday in kooxdiisa Real Madrid hogaanka looga nasto qaybta hore kadib markii madax uu goolka la beegsaday Dean Hodgson ay ku dhacday birta goolka kubaddii soo noqotay ayuu dhammaystiray waxaana uu ka dhigay 2 gool iyo 2 gool goolka go'aamiyay ciyaarta waxa keenay Rafinha daqiiqadii 73 kadib markii kubaddiisu ay ku sii dhacday digdiglaha daafaca Real Madrid Raul Asensio kubaddaasina ay shabaqa sii gashay taasi waxay Barcelona u xaqiijisay koobkeedii afraad tan iyo markii Hansi Flick uu tababar u noqday kanina waa Juan Garcia goolhayaha dahabiga ah ee Barcelona wuxuu kulankan sameeyay 7 badbaadin oo qaarkood kulanka go'aamintiisa ay muhiim u ahaayeen dhammaan reer Barcelona waxay maanta leeyihiin waqtigu bari buu adkaa hadduu sabar waaqa dhalay waxa batay guulihii ka raystay bukaanadii baraarugay oo ilbaxay waxay ula jeedaan waan ka raysanay damiinkii ku soo laad oo ka dhaliga ahaa waa Marc-Andre ter Stegen inay Real Madrid dhinac kasta u jabtay xalayna waxa ku tusaya sawirkan waa madaxweynihii kibirka iyo isla weynida lagu yaqaan Real Madrid Florentino Perez kaasoo si dareen la ugu hambalyeynaya madaxweynaha Barcelona Joan Laporte kadib markii ay kooxdiisa ka qaadeen 3 final oo xiriir ah Joan Laporte waxa uu yiri guusha 3 final oo isku xigta oo aan la ciyaarnay Real Madrid waa wax lagu farxo in la arko farxadan ka badan ma dareemi kara xilligan adiguna nala wadaag aragtidaada nasiye